canshuur laga jaraa. Canshuurta marka xeerka noo degan waxaa la lahayn haddii saacadaha qofka uu ka shaqeeya ka badan tahay 200 oo saacadood calaa xisaabka loogu dhifanayo rate-ka markin oo qiimaha ku shaqeeyayana saacadini $10 ka weyn tahay gross wage-kiisa qofkaas 2% 200-kiiba aa lagu dhifanaa. marba hours-kaaga haddii 100 ka badan yihiin rate-kaagana uu ka weyn yahay markin oo ay ka badan tahay $10 200-kiiba canshuuraha kugu waajibtay, otherwise zero. haddii kale haddii less than 10 aad tahay amba less than 200 aad tahay waxba lagama rabaya sheekh tartiib. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو wanaagsan meel kastaan joogtid iyo si waliba aanu maqlaysid kusoo dhawaad waa casharkeeni saddexaad ee barashada cilmiga IT-da basic computer-ka buugiisa saddexaad ee Excel-ka casharkiisa saddexaad. maanta casharka saddexaad ee Excel-ka waxaan ku arki doonaa casharka koowaad iyo labaad anagoo kusoo aragnay waxa uu yahay Excel-ka sida loo soo kiciyo, waxa magacyada kala duwan qaybtii labaadna aan ku aragnay sida jadwal adiga shaqaalaha ku saabsan u sameeysa lahayd anagoo jadwaladeen iyo casharadeen ay ka koobnaan doonaan ayna naqa doonaan kuwa kooban oo waxtar leh. markastana waxaan ka turjubaan doonaa baahida bulshada iyo sida codsigiina iyo baahiyooyinka qabtaan. marka fadlan ha hilmaamin subscribe inaad saartid nala socotid casharada si markina si kuwan si ku soo dhacaan wixii tala aan hoos noogu soo qortid wix kasto baahiyadana wixii aqoonteena ina ku faa'iidino waliba si fariiyana waxa nagu tahay waajib oo dalka iyo ummadda Soomaalida oo ballan qaadna aad baa u maasantahay. casharka saddexaad sida wada ogsoonahay marnaba haddii aan ka sheekeyno Excel iyo barnaamijkiisa aan ku jirno wax theory leeyahay meel baan iska dhigaynaa waa calculation xisaabaad iyo madax xanuun intaba inoo diyaar garooda. laakiin haddaa ku celisid mar labaad mar saddexaad in badan haddaa ku celisid si fiican ila soo xiriirtid si fiican aan kaaga xaqabtiri doonaa. aad baa u maasantahay. maanta waxaan baran doonaa payroll-ka sida wada ogsoonaa jadwalkan markiina akhrino serial number-ka magacii hours iyo rate gross wage income tax iyo net wage waa maxay. marka waxa laga wadaa jadwalkan wax ka aqoonsanaysa inkastoo aniga dhaqaalaha iyo waxaana baranin ama IT aan qof professional IT ahay haddana waa sida loo xisaabiyo markino income tax-tiga muhiimadan kalena waa income tax-tiga waa canshuuraadka. waxaan galnay marka sheekadii marka wasiir Bayle aan galnay canshuuraadka marka for example qofkan wuxuu noqon karaa marka qof shaqaale ah oo shaqeeyo waqti kooban part-time haddii noqoto bare jaamacadeed haddii noqoto qof shaqaale caadi ah qofka shaqaalaha oo saacadaha shaqeynayo waxaa jira marka lacag canshuura sidee marka loo xisaabiyaa. marka qofka marka waxa saacadaha uu shaqeynayo waa hours-ka oo kuwana rate-kana lacagta ku shaqeynayo waa tana gross wage-kiisana waa total-kiisi bimacnaa saacadihiisii iyo rate-kiisii markii la iskugu dhifsado wixii uu soo baxo qofka xaq uu soo baxay. de qofka marka toos u qaadan maya canshuuraha goyso canshuurtan waxa u degan xeerka canshuurta markii laga jaray kadibna waxa soo baxay lacag lahayn net wage amba net balance oo lacagta nadiifta ah oo gurigiisa kula naqanayo amba u xalaalowday. marka sida wada ogsoonahay marka waxaan isticmaali doonaa marka formuladan aad iyo wala socda. marka gross wage-ka markasta wuxuu noo la mid yahay hours-ka lagu dhifta rate-ka bimacnaa qofka macalinka waxbarashada amba qofka shaqaalaha waqti kooban ku shaqeynayo gross wage-kiisa inuu xisaabsan marka waxaad iskugu dhifanaysaa
howriska ku shaqeeyay saacadii ku shaqeeyay iyo rateska qiimaha ku shaqeeyay then wixii uu soo baxaa canshuur laga jaraa canshuurta marka xeerka noo degan waxaa lahayn haddii saacadaha qofka uu ka shaqeeyay ka badan tahay 200 oo saacadood على حساب كلو دفنا ريت كماركين أو قيمة كشقية هنا ساعدين $10 كوين تهي جروس ويتكيس خوف كاس 2% لبا بقول كيبا على ودفنا مربا هاورس كاغادي 100 كبدين ريت كاغن او كوين هي ماركين او كبدن تهي $10 لبا بقول كيبا عنشورا كو واجبتي otherwise zero هدي كله هدي less than 10 aad tahay amba less than 200 aad tahay waxba lagama rabo ya sheekh tartiib because of canshuurta noo degsan kuma waajibin net wage kan waxa waaye gross wage ku soo baxay markii canshuurta lacagtii iyo markiino ala kala jara net wage ka marka okay marka shakada marka warba wax ma tarayo jadwalkan okay jadwalkan dhisayna markaas practically payroll okay payroll excel keena noo soo bixi okay mid cusub tag cashkan cashkii kooriga ku qaadan waa si fiican daa xasuusatid sheetkan waxa ay u qortaa payroll yani maxana kala haysto okay sida wada ogsoonahay number name jadwalka dasiyo ku socdaadii miska qori karto tokadan waa inaad marka kuwaad calaamadeysatid hours rate gross wage hours rate gross wage income text income tax net wage amba net iskana net kusoo gaabay okay before arrangementkiga bilaaba sheekadii horeeto howriska reedka no problem gross wage ka yara waxyara intiga waasi income taxtiga xoogaa yara space fiican saa u helo netkiga okay iigu qurxi marka meesha ku baashaali raawiyey okay yara ii weynay kalarkii uu bedel aan iska dhiso si fiican serial numberka 5 qofood ka badan ma sameynaa 5 qofood oo real aan sameynayna 1 2 sida wada ogsoonaa in sheegaba labadan box heelaad saaro calaamada cornerka falaarta dollarka waxagiisa cornerka geeska gey plus markay noqoto kili ku sii 1 2 3 4 5 laga gaarsii magacyada qofka ii qor 5 magac aan iska qoranaa okay sida Ali Ahmed Mose Aisha 5 qofood oo kale taw iska qoranaa Sumaya okay magacyadii waa qortaba tusaale qasamayna dhameysiro adiga daarti dhameysiro qofka kuwaad macnaha value asiya marka
leano adiga qofkii markii managerka ku soo dhiyo mogta dokumentigiisa gacanta ka qoran waxba reed kala duwan siina marka for example sayid wuxuu shaqeeyay 300 oo saacadood okay ala saacadin wuxuu ku shaqeeyay $25 reed iska siina qofka okay Ahmed wuxuu shaqeeyay 380 hours okay 320 qofkana shaqeeyay okay qofkan 180 oo kale taa shaqeeyay qofkana 80 kaligeed uu shaqeeyay okay reedku ku shaqeeyay waxa qofkan $8 qofkan wuxuu ku shaqeynayay $18 qofkan wuxuu ka shaqeynayay $9 saacadii intaas lagu difaac macnaha qiimaha value la iska siiyay mugta $21 waxba u xisaabadin marka value waa si macnaha value waa marka gidgelinaysid oo lagu keenay adiga shaqaalihii managerka ugu mugta inta uu shaqeeyay marka xogta gidgelinaysa okay gross wage marka maxaan dhahnay qaacidadiisa maxayd equal marka dhahdid marka hours ku dhifto rate-ka bimaana hours waa maxay waa 300 waa column kan waa marka column kan okay column kan waxa ku dhifanaysa marka calaamada ku dhifashada taabo waa control 8 waxa ku dhifanaysa rate-ka ku dhifo okay marka C2 times D2 C2 bimaana 2 horta waa rowga labaad marka D markuu yahayna waa macnaha meeshan waa D column kana lagu jira waa D2 saas ku yimid C2 na saan ku yimid macnaha halka iyo halka way labadaas gud okay interde waka lacagtii way soo baxday totalka meesha ku keenana waa tadartid halka ka fiiri marka labadaas lacag isku dhifsaday income tax-tiga hadda fiiri si fiican igula soo cin kasabta formuladii markay isticmaala formuladii markay ina xafidid way maxaa ku dhahay equal if bill for and bill for marka waxaan dhahay qofka markii hourskiisa oo ka weyn yahay 200 comma rate kiisana uu ka weyn yahay sidoo kaleeta bimaana rate ki hourska meeshan qoraalka ku dhifan sidii value ku dhifanaysa waliba hal column ka koowaad bis leedahay qaacidada ka qoraysa mu baanid markin oo ina gacantan ka qortid ina ku dhif click la iskaaga si D2 iyo C2 waxaan inay ku soo baxaan la rabaa rate kaaguna uu ka weyn yahay $10 sida darteed marka bracket kii xir comma qofkaas marka gross wage-kiisa waxaa loogu dhifa doonaa 200 comma otherwise 0 qofkaas hadii kaleeta yani wax walaga maro bracket-kii xir okay intaanan enter ku dhihin oo result-ga inii soo bixin asla faana marka equal if bill for an bill for C2 bimaana C2 waa ka sidan iyo tuudan bimaana cell-kaas waa 300 ku qoranta marka cell-kaas oo u dhigma marka yani qofkan koobaad yani hourskiiska hadii uu ka weyn yahay 200 comma D2 bimaana rate-kiisa waaye rate-kiisuna uu ka weyn yahay 10 qofkaas E2 bimaana gross wage-kiisa waaye qofkaas waxaa loogu dhifanaa 200 aan ahaynin qofkaas hadii ku yar yahay inta shuruudaha soo dhameystir waa 0 macnaha lagama rabo inta marka waa ka qofkan income tax-tiga 150 laga rabaa
lacagta marka dollar miya ana currency isticmaali kartaa laakiin dollar ahaan aad iska xisaabiyana adhuuti aad ku soo dari karo sambalka dollarka ku soo dari kartaa no problem gadaal ka arkayna qofka income tax tina oo isa bax kili ku sii waa ka if before and before due to 200 بمعنى awariska duu ka weyn 200 rate kan uu ka weyn 10 gaduus wajkiisu ugu dhifta 200.0 netka marka lacagta balance-ga netka qofka uu naqanaysa waa idan waxa way equal netka iska fuudaay gaduus wajkan oo laga jaray income tax-tiga gaduus wajka minus income tax-tiga بمعنى lacagtiisa caadiga nadiif ah oo soo baxday qofkan marka 7,500 oo shaqeystay markii laga jaray marka 150 waxa uu soo baxayso 7,350 lacagtaana marka net balance la lacagtaan guriga la naqraa canshuurta marka laga jaro maadaama hal qaacida ah qoray de Axmed noqoro Muuse qoro Caasho qoro Sumeey qor is very difficult way adag tahay maxaa hadaba xal loo baahan yahay waxa loo baahan yahay halku waa fudud yahay hal mar bisa qaacidada qoranaysa marka qoratid kadibna automatically ku shaqeynaa sida 1 2 3 oo badiyaa amal oo badiyaa halka imaad calaamada balasta ah geeso soo jiid waka qofka totalkiis calaamada balasta markay noqoto soo jiid automatic u shaqeeyo fiiri لماذا لمدان قفود 00 كانت because of شروط income tax tiga soo ma dhameystirin why aynu ku soo dhameystirin oo fiirso greater than 200 alla mugtay the 200 ma dhamade 880 ma 200 dhamo marka ma suurta gelaysa marka saasay marka waxay ku heleen shuruudii income tax marka lagu malaada kan waa 0 dadkan qofkan kale tan 180 lix laga rabaa kana 159 laga rabaa kana 150 laga rabaa waa ka marka shaqaale kale inta uu dara numberka badiya 6 magacay 10 gaarsiya rate kana adu waxa laga baahan yahay awariski rate ka bis inta kale automatic ayaga ababadayo sabab example kale ta ku tusiyaan hoos u soo jiid ilaa inta gaarsiin hoos u soo jiid bal ilaa inta gaarsiin u fiirso wax yaraan ku tusinaa inay hal mar qaacidana aad dejisa kadib inta kale easy ku taan qof cusub iska kareed garay qofkan cusub waxa siisaa qalata inuu shaqeeyo 4 hours 400 ala saacadina $40 inuu ku shaqeeyay u fiirso waa ka qofkan xisaabka labadan saddexdan xisaab automatic u boodayna ayaga shaqeynaa kaagan baan waxbaadin 500 hours oo qofkan shaqeeyay على ساعدنا كنتن دروكو شقينا كان لعق بدنا على غربها شي هير وكم for example قف هادني هاو ريسكي سوي حين 100 200 ده الاسكرب 100 ده نقد شروط كان سمو بوحين اوكي ماينس ماشي زيرو ولا غربها انتن ريت كيس انو تماي لما دورو نقد اوكي لعقتيس فيدي marka income tax tiisa zero نقد because of ماشان 200 inuu ku yahay la rabay intana graded labada midkood shuruuda soo bixiso waxba meeyeen ku laha marka income tax qofka saas loogu maro waxaan rajeynayaa inaad fahantay adan ku confuse gareyn tartiib oo deganaana one by one iyo slowly aw la socotid marka xisaabkan detail sameyn kartaa waa si qurxan kartaa ma garad saarta ku sameeysan kartaa adiga iyo fahamkaaga waa adiga isa u xiisaysid ku xiranta meeshan baasha la yaalo qofku wax fahmo iska baashali kara saano kala taa u dhiitin galastay waxa laga yaabaa xisaabaad noocan inaa ku aragtid just hadda credit garay kartid ada abuuri kartid sameey kartid marka waa sameey kartaa you can do it sameey had baan u mahadsan tahay sida uu la socota cashirkan أنا رجينا إنها فهمتي براتيكو دونتيد كم مقصود دونتيد براتيكا نقسمي دونتيد وما سنتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلنا هاي الماوين سبسكرايب كينا سارتيد لسعوديد 10 كلا تاني هاي الماوين أدبا وما سنتاي